markan yaatana ku soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekada waa hagaag dabadeed waxa dhacday in uu xanuunsan doono ninkii labada xaas lahaa ninkaasi ayaa muddo xanuunsanayay isagoo xanuunsanaya oo guriga bahda weyn ama xaaskiisa weyn jooga oo ku xanuunsanaya ayaa waxa dhacday in gabadhii kale ninkeedan xanuunsanaya awood ay gurigii intay ugu timaado ay ku soo egtaanay jirin maba dhici karto mana iman karto oo guriga intay timaado wax macquul ah maaha waayo naag la qarinayo weeyaan naagtee ay naagtan kale ogtahay oo dee la odhanay maanta way ogtahayna maaha oo ogaansho lagu tirinayo dabadeed waxba yaanan hadal idinku daalin ninkii in muddo ah ayuu xanuunsanayay xaaskiisan kale unbaa wadwada oo dee hadba la daalaysa amaba la tacaalaysa isaga faamilkiisa laftirkiisu sheekadaasi marnaba afkooda kuma soo dhacayso oo iyagu waxay aaminsan yihiin inayna gabadhani haba yaraato haba badnaatee ayna waxbaba ogeyn iyaduna waxay hoosta ka leedahay ilaahow nimaan waxba ogeyn ha cadaabin dabadeed waxba yaanan hadalka idinku sii dheeraynayna gabadhani howlaheeda iyo danaheeda ayay wadatay ninkeeda xanuunsanayana sidii ay ugu dadaali lahayd amaba isagoo caawin lahayd ayuunbay falowgeeda ku jirtaa sheekadaasi ina iyadu ku dhacday amaba naag kale lala qaba xataa marnaba ma dareensana cidna iyadu ma dareensiiso dhibka laakiin gudaha ayay ku qarsanaysaa dhibka iyada la soo darsaya mar walba gudaha ayay ka ololaysaa amaba ay ka gubanaysaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana wuu qabaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana wuu qabaa sumaati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa hormay igu sii turqaan xusuusaan taabayaa hormay igu sii turqaan sumaati ku hayso ayaama tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa hormay igu sii turqaan xusuusaan taabayaa hormay igu sii turqaan isagu markii hore uu caafimaad qabay waxa uu ku dadaalayay oo mar walba uu tusayay jacayl fara badan xaaskiisa hal habeen xataa kamuu dhixin gabadha kale ee uu qabo isagu waqtiyada kale ee muhiimka aan ahayn amaba maalin oo dhan ah ayuu la joogayay uu nolosha dee la qaadanayay inta uu reerkiisa kaga maqan yahay shaqo aan ku maqanahay uu leeyahay shaqan ku maqan uu leeyahay ayuu kaga maqnaan jiray
waxaa dhacday markaasi ninkaasi intuunu xanuunsanin xaaskiisa hore hadiyado aanay hore uga baranin ayuu mar walba u keeni jiray. dabadeed markii uu xanuunsaday ee uu soo dhacay oo markaasi xanuun qabtay, ninkani way ku adkaatay inuu markaasi naagtiisa u soo bandhigo inuu naag kale la qabo. wuuna xanuunsanayaa, wuxuunu jecel yahay inuu u sheego oo uu ku idhaahdo gabadh kale ayaan kula qabaa, laakiin way ku adag tahay. iyaduna ilaahay unbaa xaal oge, waa naag xaalkiisa og. mar walba marka ay wejigiisa ka dareento isagoo xanuunsanaya haddana murug kale u dheer tahay ayay ku tiraahdaa maxaa kugu dhacay. waxayna rabtaa inay ogaato in uu bal sheegi karo arrinkan iyo in kale. qalbigu wuu taamayaa, wuxuu tabayuu rabaa, tiirayana wuu qabaa. qalbigu wuu taamayaa, wuxuu tabayuu rabaa, tiirayana wuu qabaa. rumaati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. rumaati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. maalinba maalinta ka dambaysa waxba ma jiraan ayuu idhaahdaa, xanuunka ayuunbaa sidan ii gelaya. horta wax la qaryo baa layidhi qurun ayaa ku jira, waxaad qarsataana way ku qarsadaan ayay soomaalidu tidhaahdaa. ragga soomaaliyeed amaba ragga cid walba ha noqotee, ragga adduunweynaha ku nool inta badan ragga soomaaliyeed ayaa u badan oo iyagoo xaas leh ayaa waxay ku hamiyaan inay xaas kale ku daraan. haba ku daraane in ay qariyaan ayay isku dayaan, laakiin sida loo badan yahay mar unbay ka fashilantaa oo ninka naag kala qarinaya waa la ogaadaa. markaasi sida loo badan yahay waa la ogaadaa uun. qalbigu wuu taamayaa, wuxuu tabayuu rabaa, tiirayana wuu qabaa. qalbigu wuu taamayaa,
tagayuu rabaa tiirayana tiirayana wuu qabaa maati ku hayso ayaama tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa ku hayso ayaama tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa hase haatee ninku inuu naag kala guursado wax dhiba kuma fadhido oo diinta islaamku waxay banaysay inuu ninku naagtiisa marka uu doonayo inuu naag labaad ku daro inuu kala tashado ama ha ka yeesho ama yayna ka yeelin waa sida anigu aan aaminsanahay waxaa jirta oo anigu aan ogahay oo aan garanayaa gabadh ninkeedii uu ku yidhi waxaan jecelahay inaan gabadh kala guursado maad iigu ducayn ma ii ducaysay in aan gabadh kale mehersanayo oo aan guursanayo raallina ma igaga tahay dabadeed gabadhaasi wixii ay yeeli lahaydba horta yaabbay ku noqotay hase ahaatee haddana may diidine waxa ay ku tiri waan kuu duceeyey inuu ninku naagtiisa hore la tashado waxyaabo badan bay u sahlaysaa sababtoo ah way og tahay wayna kaga yaraanaysaa dhibka marka kale ee la qarinayo ee la leeyahay ninkaagii naag kaluu kula qabaa oo uu qarinayaa murug intee leeg ayay dareemaysaa waana dhib wayna ku adag tahay baa la odhan karaa laakiin marka ay noqoto in uu kala tashado way ka sahlanaanaysaa oo dhaawaca qalbigeeda laftirkiisu sidii hore uu ka sahlanaanayaa sababtoo uu la tashaday uu sheegay muu khiyaamin laakiin marka uu khiyaamayo iyadoo naagtiisii gurigii joogta uu naag kale ku darayo ee uu rabo weliba inuu qariyo hadhow marka ay ogaato gabadhaasi dhaawac intee leeg ayaa soo gaadhaya ayaa la odhan karaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana tiirayana wuu qabaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana tiirayana wuu qabaa maati ku hayso ayaama tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa
turqaa waxaa dhacday in inankii xanuunsanayay ee labada xaas lahaa iyo weliba naagtiisii maskaxda isticmaalaysay ee aan hal mar xataa dareensiinin inay ogtahay inuu naag kale la qabo ayaa ninkaasi xanuunku marba marka ka dambaysa uu kusii siyaadayaa. dabadeed waxa uu awood u laayacay in uu idhaahdo waan kugu qaldamay, gabadh kalena waan kula guursaday, waana qarinayay, laakiin afkiiba juuqda gabay ayaa la odhan karaa. ninkaas uu ku dhici waayey arrinkaa isaga ah. qalbigu wuu taamayaa wuxuu tabayuu rabaa tiirayana wuu qabaa. qalbigu wuu taamayaa wuxuu tabayuu rabaa tiirayana wuu qabaa. maati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. tumaati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. waxaana uga wanaagsanayd baa la odhan karaa markii hore uu bilaabayey inuu ku idhaahdo gabadh kale ayaan rabaa inaan guursado, raalli maygaga tahay. waa hagaag. waxa dhacday in maalin maalmaha ka mid a faamilkii gabadha iyo faamilkii ninka inay isku yimaadaan. wuu xanuunsanayaa wiilku, xanuun adag ayaa haya. dabadeed waxay idhaahdeen bal hadda aynu tashanno oo aynu wada tashanno. ninkan waa kan xanuunsanaya, gabadhana 5 ciyaala ayay u leedahay. deedna ninkan de hadday tiisiiba noqoto bal arrinka reerkani iyo wixii tale aynu hayno iyo wixii hanti lahayaba ugu anba bixin lahayn ama aynu wax ugu qaban lahayn aynu eegno. labadii reer oo tashanaya ayaa ninkii xanuunsanayay aabihii uu doonay inuu sheekadan uu markaasi ku soo daro, uu idhaahdo gabadh kale ayaa jirta oo inankaygu si hoos oo uu qabo, laakiin haddana odaygii way ku adkaatay. dabadeed waxaa dhacday in ninkii xanuunsanayay ay tiisii noqotay oo markaas xaqii u yimiday oo geeriyooday. ninkeedu markuu geeriyoonayay gabadhani iyada oo madaxiisa dhabteeda saa uga haysa ayaa naftu kaga baxday oo labadeeda indhoodun eegayo, uunu hadal lahayn, uunu hadli karaynin, uunu arrintii iyo dhibkii kale iyo gabadha kale la qarinayo uunu sheegi karaynin.
qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana wuu qabaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana wuu qabaa maati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan waa arrin aad iyo aad looga naxo oo looga qiiroodo hase ahaatee waxaa dhacday inuu ninkii geeriyooday oo markaas uu xaqii u yimiday waxba yaanan hadal idinku daalinine reerkii geeridii ayaa ku dhacday oo ninkii markii la aasay dabadeed ayaa waxaa dhacday in la yidhi oo uu yidhi wiilka geeriyooday aabihii uu yidhi aabba kaale uu ku yidhi gabadhi dabadeed oo tagtay wuxuu ku yidhi aabba arrin baa jirta arrintaasi waa arrin la qarinayay in muddo 16 sanaba arrintan waa qarsoonayd wiilkaygu maadaamuu geeriyooday allah u naxariisto laakiin waxaa jirta gabadh kale oo uu kula qabay oo si hoos ah amaba si hoos oo uu qabay waxay ku tiri arrintaasi aabba waan ogaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana wuu qabaa qalbigu wuu taamayaa wuxuu tagayuu rabaa tiirayana wuu qabaa maati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan maati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan xusuusaan taabayaa
sii turqaa odaygii yaab ayay ku noqotay. wuxuu yidhi haddaad ogeyd sideed haddana intan oo dhan waa aamusnayd, sidee lagaaga dareemi waayey? waxay ku tiri aabba mid baa jirta, horta anigu ninkayga waan jeclaabay tiri oo jacayl xadaan u qabay, ha ahaatee uu geeriyoodo allah u naxariisto. hal maalin wax dhib ah oon isagoo u geystay ma jiro ayay tiri, kumanaan fikirin inaan dhibo. haddana anigoo aan ka fiilanaynin ayaa 16 sano ka hor waxaan maqlay bay tiri in uu gabadh kala qabo oo gabadhaa kale uu qarinayo. waxaanan go'aansaday oon markiiba qaatay bay tiri fikir ah inaanan dareensiin, uunu hal maalin dareemin. qalbigu wuu taamayaa wuxuu tabayuu rabaa tiirayana wuu qabaa. qalbigu wuu taamayaa wuxuu tabayuu rabaa tiirayana wuu qabaa. maati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. tumaati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaa. inaan ogahay inuu naag kala qabo. sababaha igu kalifay inaan aamusana waxaa ka mid a bay tiri 5 ciyaalan u hayay ninkaasi. 5taa ciyaalan u hayay biilkooda hadduu naagtaa kale aan ogaan lahaa ama waan buuqbuuqi lahaa oon dareensiin lahaa inaan ogaaday, biilka horta uu iga yareyn lahaa. waa kow. jacaylkan uu ii qabo hamigan uu igu hamiyayo way ila qaybsan lahayd oo haddaan buuqo ama baan hinaaso marna iyaduu tegi lahaa marna aan u iman lahaa, habeenna iyaduu tegi lahaa habeenna aan u iman lahaa. jacaylkuna wuu igu yaraan lahaa. waa talabaad bay tiri oo waayo u baqayaayo hal habeen igamuu dhixin bay tiri. ta saddexaad waxay tiri ninkan markuu naag kale ninku kula guursado inta badan bay tiri gabdhaha Soomaaliyeed markaaba way buuqaan bay tiri, dagaal bay kala hortagaan, hinaasay kala hortagaan, kama fikiraan bay tiri in naagtan kale la qarinayo ee qarsoodida ah ay iyadu ka muhiimsan tahay, uu iyada ka cabsanayo kama fikiraan. waana runteedu anigu arrinkaasi waan ku raacsanahay, laakiin way dhib badan tahay oo gabadh iyadoo naag kale la qabo ogaatay haddana aamusan, damiirku ima siinaya inaan aamusnaado. hase ahaatee gabadhii waxay tiri anigu waxyaabahaasoo badan ayaan eeganayay bay tiri. inaan ninkayga hal habeen aan waayo maan rabin bay tiri, inuu biilka iga yareeyo maan rabin bay tiri. jacaylkaa uu ii qabo inuu isagoo iga baqaya haddana uu sii laba jibaaro ayaan ku hami weynaa. waxaa dhacday bay tiri naagtani iyadoo qarsoodida ku timiday, iyadoo qarsoonna uu ninka kaga dhintay bay tiri. dabadeedana waxaan go'aansaday bay tiri naagtaa qarsooni weligeed baa qarsoonaato, laakiin adigu maadaama unad qarsoonayn
oo cid walba ku ogto xaaskii hebel lagu leeyahay marnaba ha ku fikirin inuu ninkaagu dareemo wax buuqa iyo wax dhiba iyo wax kadeeda. qalbigu wuu taamayaa wuxuu tabayuu rabaa tiirayana wuu qabaa. qalbigu wuu taamayaa wuxuu tabayuu rabaa tiirayana wuu qabaa. maati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. tumaati ku hayso ayaaba tilmaaman oo taguu sii dhaadayaa. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. xusuusaan taabayaa warmay igu sii turqaan. gabadhaas aad iyo aad ayay u maskax badnayd oo markaas waxay qaadatay fikir ah inaana ninkeeda marnaba naagta qarsooni ayna kala wareegin iyadoo qarsoono sidaas oo isagu adduunkaba uga tegay. sheekadani waa sheeko dhab ah markaaynu raacno ama baynu raacno waxay ka turjumaysay oo ay ahayd nimanka inta badan la guursada dumarkooda hore amaba xaaska hore ee iyagoon la tashanin amaba u sheegin guursada qarsoodina ku haysta oo markaasi si qarsoodi ah gabadh kale u qaba. dhibkeeday leedahaa la odhan karaa. gabadhaasina way ka baxsatay wayna ka badisay in ay iyadoo naagta la qarinayo 16 sano u adkaysato. aad iyo aad ayaan ugu raacsanahay. waxaan leeyahay anigoo Faadumo Cilmiya kulanti wacan oo xiiso leh.